barnaamijkaas oo sida caadiga noo ahayd oo yani dhalinyarada Soomaalida dhalinyarada la shaqeysay ee wadamada dariska aan ahay ka imaanayo islaamku markay u sharxaan way ogolaadaan yani in islaamka ay soo galaan Ingiriiskan Afrika ogsoontiino islaamka ayaa ku badan oo zaid ku ah marka bal taariikhda isa soo mareen iyo sida uu ugu sharxay islaamka iyo muwaaqifta isa soo mareen iyo ugu dambeystii qanaacadii sida uu ku soo gaaray war xeer barbixin naga siinay soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim horta go'aankaas lahaa oo diinta jeclaa insha Allah anina wada igu xariiriyeen aan masaajidka la geeyay Allah xoogaa aad u badan tii xaqayga dhow marka asiga jeclaaday oo yiro haraa diinta islaamka inaan qaato aniga marka ma lahayn door fiican hatta luqadda ingiriisiga si fiican ma aqaano go'aankiisu ahaa hatta waalidiintiis marara loo sheegay diinta islaamka way gaartay culumada u tagtay laakiin si fiican loo baray marka ina caawsaan qofkii luqadda yaqaan ee u sharaxi kara ee fahansiin kara door fiican ka qaadan kara waxaan jeclaan lahaa inuu ninka جزاك الله خير هذا ما سنت جزاكم الله خير يعني كينيا يوغندا Soomaaliya iyo Ethiopia kula ogtiino dadka yani muslimiinta u badan marka qoys walba waxa laga yaabaa wadamada dariska aan nahay inay isugu jiraan qaar muslima iyo qaar masiixiyiin ah marka waxa ka dhaxaysa mar walba in wax la isu sharxo la isgaarsiiyo marka macna bilow ma aha wax la yaab lana ma aha qof yani inuu soo ku soo qanco diinta islaamka maxay yeelay dadka ayaa qaaradan islaamka ayaa u badan islaamku maxaasintiisa iyo quruxdiisa iyo wanaagiisana meel walba ayuu yaalaa marka jazakallahu khayran wiilasheena dhalinyarada ah barnaamijkaas mar walba ka qayb qaatay ku maadsan yihiin marka magaca iyo magaciisa asaga magac waxa la yiraahdaa Umar عمر علي عمر بحسن what's your name كل اللي جرت عمر بحسن ما شاء خير marka waa yani magaciisana asaga doortay oo waxaan baxsaday dhahay Umar ما شاء الله ومساadkeenu ku magac yahay iyo saxaabigeena Amir al-Mu'minin Umar marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu ku sugo diinta islaamka una sii barto meel kasta oo tagana dad muslim ah waa laga helayaa islaamkuna maanta internetku ku jira asoo luqad kasta ku fasiran ayaa la helayaa yani aad iyo aad ay arintaasi marka u badan tahay marka sida caadiga inoo ahaan jirtay waxaan u qabanaynaa tawxiidka kelimooyinkii tawxiidka ayaan u dhahaynaa una iga dab dhahaya marka intaas u sheegay say what say you كرفما زكيم معنا سولو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأشهد أن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنقذه من النار لا يا ماد إسكالة نار كبد باذي لأن يرضي يعني صوت تشكيل السينة وحيا هلان لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إلهي هدو صوابت هذا قف وقال لك إنه دينته كسو قالوا جيل جدودا تاس أياك خير بدن مركز لأن يرضي إنه يعني وضان دعوة oo ay faafiyaan oo ay yani soo tashkiiliyaan waa loo baahan yahay ayaguna ay ku dhaqmaan islaamnimadan aan si camali ah aan u muujino maxaasinta islaamka si dadka kalena ay inoo soo raacaan oo inoogu dadeen aad ay maasantii Ilaahay subhanahu wa ta'ala tawxiidka ku sugo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u fudeeyo acmaasha islaamka ee uu qaatay inuu ku dhaqmo sallallahu ala sayyidina Muhammad aad ay maasantiin wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh an takuna sadaqa baynaka wa bayna Allah subhanahu khalisatan liwajhi subhanahu amma idha anta turidu أن تظهرها للناس حتى يتشجع الناس للإنفاق في سبيل الله فهذا خير إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أي حتى لا يشوب هناك رياء والسمعة والشهرة أن تنفقوها خفية وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهذه تنبيهات وخواطر حول الأعمال الجليلة التي تقوم بها الأمة الصومالية عندما تقوم بمساعدة بعضها البعض ألا تنسى أن هذه الأمور كلها
لا نعملها إلا إرضاء ورجاء لثواب الله سبحانه وتعالى. أما الأغراض الدنيوية الأخرى فهذه ليست هدفا ولا غاية، فلتكن أهدافنا نبيلة: إسعاد الآخرين، إسعاد الناس، إخراج الناس مما هم عليه من المحن والشدائد. مقابل ذلك لا نطلب منهم ثناء ولا مدحا، وإنما نرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، اعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد لهذه الأمة خيرا فحقق الخير في يديه، ومن أراد لهذه الأمة شرا فاجعل الدائرة واشغل في نفسي واكفنا من شره يا رب العالمين. اللهم يا من ألف بين الشجر والنار ألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستقدر بقدرتك ونستحمي بحماك يا من عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره، نحن في جوارك فأجرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين. اللهم رد عنهم كيد الكائدين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم إن هؤلاء الضعفاء الضعفاء يحتاجون إلى نصرك يا رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم احمهم، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم من أراد للأمة خيرا فحقق الخير في يديه. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الحق يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم حقق آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على جزيل نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. iyadoo la ogyahay ahmiyada uu leeyahay barnaamijka bulshada ay ku xiriirto ee social media iyo arrimaha ku saabsan oo xilligan casriga ah noqday aalad runtii aad iyo aad saameyn u leh, ayaa waxaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta adduunka ka joogaan aan la wadaagaynaa inaan u furnay page ku furan magacayga oo la yiraahdo page-ka Sheekh Cabdilxay oo YouTube-ka ah, kaas oo la soo gelin doono barnaamijyada aan ugu talagalay in bulshada lagu wacyigeliyo oo ay ka mid tahay khudbada Jumcada ee isbuuciiba mar baxda ee magaalada Muqdisho masaajidka Umar bin Khadaab ka baxda, iyo waxyaabaha kale aan isleenahay baahi ayaa markaas ummaddu ay u qabtaa inaan aan u soo bandhigno. waxaa kaloo jiri doona su'aalo oo runtii dadku ay aad isu weydiiyaan oo ay soo weydiiyaan inaan fursad u siino Facebook inaan isbuuciiba mar aan ku soo bandhigno mowduucyo markaas aan isleenahay muhiim ay bulshada u yihiin, ayagoo wixii su'aalaha ay qabaan ay halkaas ku soo qori doonaan, kadibna aan jawaabta usoo dhigi doono page-ka YouTube-ka aan ku leeyahay page-ka Sheekh Cabdilxay. marka dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sida aad uga qayb qaadataan wacyigelinta bulshada. kolba barnaamijka qiimo leh meelahaas lagu soo bandhigo marka aad uga sii qayb qaadataan iyo dareenka runtii wacyiga sareeya aad kaga falcelisaan hadba markii duruufta iyo mowduucyada halkaas ka jira la maraayo. marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada page-kaas insha Allah taala. waxaan rajaynaynaa duruus laga faa'iideysto iyo macluumaad muhiim u ah nolosha dadka, isla markaasna diinteena islaamka iyo faafinteedana qayb weyn ka qaadan doona inaad halkaas ka heli doontaan. marka saa ula socda waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.